أبو حفصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومid ka mid ah saxaabadii suubanaheena naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee sidoo kale waa mid ka mid ah raggii jannada loogu bushaareeyay oo wali baaqi ku ah dunida waxa uu ahaa amiirkii ugu horeeyay ee muuminiinta oo idil sidoo kale waa khaliifkii labaad ee khulafaa raashidiin amiir al-muuminiin عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومقع argagax ku abuuray hurdadana u diiday dawladihii ugu awoodda badnaa xilligaas jiray Ruum iyo Faris wahaliga kaliyaatay xitaa ay ka baqan jireen shayaadiintu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu waxa uu yiri islaamida Umar waxay ahayd furasho hijradiisuna waxay ahayd guul madaxtinimadiisuna waxay ahayd naxariis Allahumma ansurna alayhim bi barakati Allahu akbar Umar waxa uu dhashay dhacdadii caamul fiil sanadkii maroodiga 13 sano kadib markii la soo diray rasuulkeena naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Umar waxa uu jiray 26 sano isagoo islaamka la colatamay muddo 6 sano ah waxa uu islaamay oo diinta xaq ah qaatay isagoo 32 sano jir ah Umar waxa uu aad ugu dhagnaa diinta abiyaashii oo aaminsanaa inay tahay mid ugu saxsan sida darteed waxa uu kamid ahaa raggii sida aadka ula dagaalamay dacwadda islaamka Umar bin al-Khattab waxa uu kamid ahaa halyeedii raggii ugu geysaysanaa Quraysh iyo Carabta dhexdeeda xilligii jaahiliyadda oo waxa uu ahaa mid laga cabsado xilli dadkii muslimiinta ahaa lagu hayay dulmi xad dhaaf ah oo kaga imaanaya dhankii Quraysh ayaa Allah subhanahu wa ta'ala u soo saaray seef ka ilaalisa dulmigaas waxa islaamay Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu markii loo hijrooday magaalada Madiina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu waxa uu noqday harkii nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee isagoo kala qayb qaatay suubanaheena dhammaan duulaanadii uu qaaday sida Badr iyo Uhud markii uu dhintay Abu Bakar ayuu noqday hogaamiyaha muslimiinta maadaama uu sidaas dardaarmay khaliifkii muslimiinta Abu Bakar radiyallahu anhu markii uu Umar la wareegay hogaanka ummadda qisooyinka cajiibka ah ee naadirka in laga helo hogaamiye lamid ah amiir al-muuminiin Umar bin Khattab radiyallahu anhu waxa kamid ahaa maalin ayuu koray minbarka masjidka isagoo amray in aan meherka qaali laga dhigi karin waxaana uu yiri haddii meherka in qaali laga dhigo ay ahaan lahayd arrin wanaagsan nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa sameyn lahaa isla markaas waxa istaagay haweeney reer Quraysh ah iyadoo si geesinimo leh u tiri Umarow Allah ayaa ina siiyay ma adiga ayaa inoo diidaya waxa uu yiri Umar Allow ii dambi dhaaf dhammaan dadku way ka aqoon badan yihiin Umar markaas ayuu ku noqday minbarka oo waxa uu yiri dadow waxaan hore idinka reebay inaad qaaliyeysaan meherka haddaba qofkii doonay inuu maalkiisa bixiyo inta uu jecel yahay ha sameeyo amiir al-muuminiin Umar bin Khattab radiyallahu anhu xilligiisii waxa dhacay dagaalo waaweyn oo la galay dawladihii ugu awoodda badnaa adduunka Ruum iyo Faris waxa la furtay Masar Iraq Khurasan Azerbaijan Dimashq Himsa Baytul Maqdis iyo meelo badan furashadii Dimashq markii ay heliyadii muslimiinta furteen Yarmouk Khalid bin Walid ayaa waxa uu ku dul akhriyay ciidankii warqad uga timi caasimadda khilaafada magaalada Madiina taas oo ay cadeynaysa geerida Abu Bakr radiyallahu anhu iyo in khilaafadii ay u wareegtay Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu sidoo kale warqadaas waxa la sheegay in hogaaminta ciidanka Sham lagu wareejiyay Abu Ubayda bin al-Jarrah halka Khalid bin Walidna ku xigeen u yahay intaas kadib ciidanka muslimiinta oo ay hogaaminayaan Abu Ubayda iyo Khalid ayaa u dhaqaaqay dhanka furashada Dimashq inta ay sii socdeen ayaa waxa uu timid fariin sheegaysa in cadawgii gurmad uga yimid dhanka Himsa iyo in koox tiro badan oo Rumaan ah ay ku sugan yihiin Fixli oo ka mid ah dhulka Falastiin Abu Ubayda ayaa fariin degdeg ah u diray amiirkii muuminiinta Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu isagoo kala tashanayay wixii uu sameyn lahaa intaas kadib waxa timid jawaabtii la sugayay Umar isagoo amray inay ku bilaabaan furashada Dimashq maadaama ay ahayd xaruntii boqortooyada Ruumaanka sidoo kale waxa uu amray in koox fardoolay ah loo diro Fixli si halkaas loogu madadaaliyo ciidanka halka ku sugan waxa uu yiri hadduu alla idin furo Fixli ka hor inta aan Dimashq la furin waa sida aanu jeclayn haddii aad Dimashq furataan uga tag Dimashq mas'uul adiga ee ciidankaaga u dhaqaaqa dhinaca Fixli haddii aad Fixli furataanna adiga ee Khalid u dhaqaaqa dhinaca Himsa intaas kadib Abu Ubayda ayaa ciidan u diray inta u dhaxaysa Dimashq iyo Himsi si aan wax gurmad ah u soo dirin reer Dimashq sidoo kale ciidan ayuu u diray Falastiin iyo Dimashq dhexdooda si aan wax gurmad ah u soo dirin reer Dimashq kadib waxa uu dhaqaaqay dhanka Dimashq si uu go'doomin adag ugu qabto ciidankii fardooleyda ahaa waxa uu madax uga dhigay Ayaad bin Qanaama kuwa lugtana waxa uu dhiibay Shurahbil bin Hasan isaguna waxa uu hogaaminayay labada dhinac mid kamid ah intaas kadib ay dhaqaaqeen iyagoo u tagay
Dimashq halkaas oo go'doomiye adag ku qabteen ciidankii Khaalidna waxay degeen dhanka bari ee albaabka Kaysan oo ahaa mid ka mid ah albaabada magaalada. Abu Ubaydana waxa uu degay dhanka albaabka Jaabiyatul Kabiir. Yasiid bin Abi Sufyaan iyo ciidankii ay hogaaminayeen waxay degeen dhanka albaabka Jaabiyatul Saqiir. Umar bin al-Caas iyo Sharaxbiilna waxay degeen albaabadii kale ee magaalada. Maalintii ciidamada muslimiinta ayaa diyaariyay madaafiic ay ku duqeynayaan magaalada iyagoo go'doomintii ugu adkayd taasoo qaadatay muddo 70 habeen ah. reer Dimashq waxay diideen inay soo baxaan iyagoo gurmad u diray boqorkii Hiraqal si uu ugu soo diro ciidamo gurmad ah. Si kastaba ha ahaatee ciidamadii gurmadka ah ay soo direen ma aysan soo gaarin sababtoo ah waxay soo dhaafi waayeen ciidankii Abu Ubayda uu dhexda u dhigay. reer Dimashq waxay yaqaansadeen aysan heli karin wax gurmad ah. aad ay xaaladdu ugu adkaatay ilaa ay daciifeen halkii ay ciidankii muslimiinta ay sii adkeeyeen go'doomintii. waxaa la galay waqti jiilaal ah oo qabow daran yimid taasoo xaaladda ku adkaysay muslimiintii. Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa qadaray in wiil loo dhalo boqorkii magaalada markaasuu qabtay xaflad heer sare ah oo khamri la wada cabay. dadkii waxay wada daateen iyagoo wada sakhraansan. Khalid bin Waliid radiyallahu anhu oo ahaa amiirkii fadhiyay albaabka Kaysan waxa uu ahaa haliya aan seexan habeenada dagaalka. waxa uu dareemay deganaanta ka muuqata dhanka dhufaysada gaalada. waxa uu damcay inuu wax ka ogaado balse umay suurtagelin. waxa uu soo kaxaystay qayb ka mid ah haliyadii ciidanka uu ka mid ahaa Al-Qacqac bin Umar. waxay ka tallaabeen togi weynaa iyaga iyo cadowga u dhaxeeyay. markii ay gaareen darbiyada magaalada waxay tuurteen xarko si ay ugu daataan darbiyada. waxay laayeen waardiyaashii goobta joogay iyo wixii meesha ka dhawaa dad ah. intaa kadib waxay fureen albaabkii markaas ay ku dhawaaqeen takbiirta Allahu Akbar. intaa kadib gudaha magaalada waxa soo buuxdhaafiyay haliyadii islaamka. dadkii magaalada ayaa markay maqleen takbiirtii muslimiinta iyagoo aan waxba garanaynin ay u kala ordeen albaabadii balse kama ay baxsan gacantii muslimiinta. sidaas ay ciidankii muslimiintu ku furteen Dimashq 20kii Rajab sanadkii 13aad ee Hijriyada. furashadii Madaa'in mid ka mid ah furashooyinkii cajiibka ah ee muslimiintu ka sameeyeen dhulka Faris xilligii Umar bin al-Khadaab radiyallahu anhu bisha Safar sanadkii 16aad ee Hijriyada waxay ahayd furashadii Madaa'in oo ahayd caasimadda boqortooyada Faris. muslimiinta markii ay galeen caasimadan ayna horteeda ku arkeen kaydkii Kisra boqorkii Faris waxay xasuusteen ballanqaadkii uu nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee u sameeyay kaasoo ah in koox muslimiinta ka mid ah ay furan doonaan guriga caad ee Kisra. markaas ayuu qalbigoodii degay hankoodina sare ayuu noqday. waxay aaminsanaayeen guusha Alle sababtoo ah waxay kalsooni ku qabeen diintooda. mar walba ay helaan fursad ay Alle ugu dhawaan karaanna waxay ahayn kuwo u tartami jiray. nin ka mid ah ciidamadii muslimiinta oo lagu magacaabo Diraar bin al-Khadaab ayaa yiri Allahu Akbar. kan waa guriga cad ee Kisra. tani waa ballanqaadkii Alle rasuulkiisuna run buu sheegay. markaas ayay muslimiintii si wada jir ah u takbiirsadeen. hogaamiyaha ciidanka muslimiinta Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu ayaa go'doomiyay magaalada isagoo fardooloodii u diray tuulooyinka dariska laha caasimadda si ay u soo furtaan. markii ay go'doomintii ku adkaatay gaalada madaxii Madaa'in oo ugu horreeyay Stachir oo ahaa boqorka ayaa go'aansaday inay iskaga cararaan magaalada maadaama aysan wax awood u lahayn ka hortagga ciidanka muslimiinta. guutidii ugu horreysay ee gashay magaalada Madaa'in waxa hogaaminayay Al-Qacqac bin Umar oo ka mid ah hogaamiyaashii ciidanka islaamka. muslimiinta waxay dhulkaas ka heleen qaniimo aad u badan taasoo Allah subxaanahu wa ta'aala uga mahad celiyeen amiir al-muuminiin Umar bin al-Khadaab radiyallahu anhu. waxa uu ahaa hogaamiye aan calooshiisa ka horumarin bulshada uu madaxda u yahay. hogaamiye hurdada uga tagi kara si uu uga warhayo bulshadiisa kuwa taagta daran iyo kuwa kale. ilaa iyo intee ayaan u baahannahay hogaamiye yaraahda haddii aan maalinkii seexdo waxaan ka baqayaa inaan dayaco xaqa muslimiinta. haddii aan habeenkii seexdana waxaan dayacayaa xaqa rabbigay. run ayuu sheegay amiir al-muuminiin Umar bin al-Khadaab radiyallahu anhu markii uu lahaa waxaanu nahay ummad oo Allah subxaanahu wa ta'aala ku shafray islaamka. haddii aan sharafta ka raadina cid aan la ahaynna Allah ayaa ina duleynaya.